TikTok waa barnaamij ama ab lagu wadaago muuqaalada yaryar waana mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee baraha bulshada. Waxaa la soo dejistay in ka badan 1 bilyan oo jeer, wuxuuna ahaa barnaamijka adduunka ugu badan ee la soo dejiyay sanadii 2018. Waqtigan xaadirka ahna waxaa isticmaala in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana si bil ah u isticmaala 800 oo milyan oo qof. sanadii 2019kiina waxay ka mid ahayd 5 barnaamij ee ugu sareeya Google Play Store iyo App Store-ka marka laga hadlayo inta qof ee soo dejisatay. celcelis ahaan dadka daawada TikTok 52 daqiiqo oo ka mid ah waqtigooda waxay ku qaataan TikTok maalin walba. maskaxda ka dambeysay barnaamijka TikTok waa 38 jir ganacsade iyo software engineer ah oo lagu magacaabo Shang Yiming waa nin Shiineys ah oo ka dambeeya barnaamijyo badan oo guuleystay. barnaamijka ugu caansanna waa TikTok. ku soo dhawow muuqaal cusub oo ku saabsan qisada TikTok iyo sida ay ku gaartay heerkaan. Shang wuxuu dhashay 1983 wuxuuna ku dhashay magaalada Fujian ee dalka Shiinaha. Shang wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda Nankai 2005 halkaas oo uu ka bilaabay barashada microelectronics ka hor inta uusan u bedelan software engineering. 38 jirkan Shiineyska ah shaqadiisii ugu horeysay wuxuu ka shaqo bilaabay company Shiineys ah oo ka shaqeeya booking-ka duulimaadyada iyo hoteelada habka internetka ah. isaga oo ka sheekeynaya wuxuu yiri, aniga waxaan ahaa mid ka mid ah shaqaalihii ugu horeeyay. bilowgiina waxaan ahaa injineer caadi ah, laakiin sanadkii labaad waxaan mas'uul ka ahaa 40 qof ilaa 50 qof. Shang oo hadalkiisii sii wata wuxuu yiri, shaqadaas waxaan ka bartay xirfadda sayliska oo ah sida wax loo iibgeeyo oo uu markii dambe u adeegsan doono inuu ka horumariyo shirkadiisa. sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay shirkadda Microsoft. inta uu bilaabin mashruuciisa isaga u gaarka ah wuxuu ahaa waaye arag shirkado dhowr ah ka soo shaqeeyay. sanadii 2012 ayuu aasaasay ByteDance oo ah shirkadda ka dambeysay aasaasidda TikTok. bishii September 2016 waa sanadii la aasaasay TikTok ayadoo wadata magaca Douyin. kadib ayaa loo bedelay magaca aan naqaano ee TikTok. isla sanad gudihiisa TikTok waxay ku gadatay $1 bilyan shirkad dhigeeda ah oo lagu magacaabo Musical.ly oo laga lahaa dalka Mareykanka. tan iyo markaas TikTok waxay ku socotay xawaaro la yaab leh. bishii July 2018 waxaa isticmaalayay TikTok dad gaaraya 500 oo milyan oo qof. hadda in ka badan 1 bilyan oo jeer ayaa la soo degsaday barnaamijka TikTok, waxaana si bil ah u isticmaala 800 oo milyan oo qof. si aad u fahanto macnaha guud, TikTok wuxuu la tartamayaa barnaamijyo waqti badan ka horeeyay. TikTokna waxaa la sameeyay 5 sano ka hor. TikTok waxaa lagu magacaabaa Douyin marka la joogo dalka Shiinaha. dunida inteeda kalena waxaa lagu yaqaanaa TikTok. shirkadda ByteDance ayaa hadda qiimaheedu yahay $75 bilyan, taasoo ka dhigaysa shirkadda ugu qaalisan ee ah shirkad gaar ahaan loo leeyahay. shirkadda ByteDance TikTok oo kaliya ma laha, sidoo kale waxay leedahay dhowr barnaamijyo kale oo ka shaqeeya isku xirka bulshada gudaha dalka Shiinaha. bilyaneerkan 38 jirka ah ayaa guushiisii qayb weyn ka qaadatay howlkarnimadiisa. inta badan hantidiisa waxay ka timaaday saamigiisa uu ku leeyahay ByteDance oo gaaraya 24%. majalada Forbes ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday inuu yahay bilyaneer bishii Maarso 2018 isagoo hantidiisa lagu qiyaasay $4 bilyan. haddana waxay gaaraysaa hantidiisa 35.7 bilyan. tani waxay ka dhigaysaa qofka toddobaad ee ugu taajirsan dalka Shiinaha. Shang isagoo ka sheekeynaya qiso dhex martay isaga iyo dadkii shaqada la waday ayuu yiri,
muddo aad u dheer waxaan daawan jiray muuqaalada TikTok aniga oo aan wax muuqaal ah samayn sababtoo ah waxaan u arkay TikTok inay tahay barnaamij loogu talagalay dhalinyarta laakiin markii dambe waxaan waajib kaga dhignay dhammaan xubnaha kooxda maamulka inay sameeyaan muuqaalo TikTok ah haddii kale waa inay sameeyaan push up waxayna ii ahayd talaabo weyn ayuu yiri waxay u muuqataa in dhowrkii sanaba mar barnaamij cusub uu dib u qeexayo habka aan u isticmaalno baraha bulshada 2020kana waxay ahayd sanadii ay la wareegtay TikTok garoonka baraha bulshada